garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle ayaa maanta waxaa ka soo degtay diyaarad 8 rakaab sidoo kalena diyaaradan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle waxay ka qaaday dad rakaab diyaaradan ayaa toddobaadkii walba waxay u kala gooshi doontaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale degmada Buuhoodle dadka ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyo nawaaxigeeda ayaa safar dheer waxay u gali jireen sida ay diyaaradu uga raaci lahaayeen magaalada Hargeysa ay Garowe iyo Gaalkacyo ayadoona sidoo kalena dadka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa waxay soo dhaweeyeen diyaaradan u kala gooshaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Buuhoodle waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay Garaad Maxamed Ducaale oo kamid ah madax dhaqameedka degmada Buuhoodle maanta waa maalin farxad leh oo gaar ahaan reer Buuhoodle farxad u ah maadaama ay timid diyaaradii ugu horeysay oo rakaab iyo xamuulba sida diyaaraddaas oo noqon doonto joogto insha Allah taala looguna talagalay isbuuc inay 2 jeer timaado halkan waxaa ila taagan ciyaartii diyaaradda hantideeda ma lahayd iyo kuwii maamulayay iyo kuwii agaasimayay iyo saxaafadii intaba way joogaan waxaa mahad leh dadkii juhdiga badan geliyay diyaaraddaas inay halkaas soo caga dhigato ka soo duusho garoonka Aadan Cadde International Muqdisho timaadana garoonka internationalka inaga inoo ah Ismaaciil Mire oo ay hadda taagan tahay diyaaradda reer Buuhoodle dhan baa leh iska leba sababtay ku leeyahay waxa weeye waa mid iyaga u shaqeynaysa una adeegay dhinaca kale waxaa iyaguna halka ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta diyaaradda ayagoona ka warbixiyay toddobaad walba in ay imaan doonto magaalada Buuhoodle diyaaradani insha Allah taala waxaan ballan qaadaynaa in aan joogtayno falayga Buuhoodle hadduu asbuuci 2 maalin u baahdo hadduu 3 bari u baahdo hadduu in ka badan u baahdo dhayli hadduu u baahdaba waxaanu ballan qaadaynaa in aynu sameyn doono falayga Buuhoodle insha Allah taala number 1 oo ahaan doono wadarkaysiin dad liito oo waayeelo ah oo isbitaal ku jiray oo waljarro lagu waday ayaan ku keenay waad garan kartaan haddii ay soo mar lahayn Hargeyso ama ay soo mar lahaayeen meesha la yiraahdo ama ay Garowe soo mar lahaayeen waad garan kartaan dhibka ay la kulmi lahaayeen dad shacab qaada ee Buuhoodle ka shaqeeya ugu mahadnaqan koorkaas ay qaadatay National Airways aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waa ku mahadnaqan waxaad uga faa'iideysanaysaan baahiyihiina dhammaan aad la aadi jirteen meel kasta oo deegaamadeena Soomaaliyeed kamid ah runtii waa arrin lagu farxo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa shirkaddan waxaan u mahad celinaynaa insha Allah cidii ka soo shaqeysay barnaamijkan haday tahay reer Buuhoodle iyo haday tahay shirkadda dhammaan cidii arrintan u kulahayd inay diyaaraddaasi shaqeyso ama deegaanka timaado waa u mahad celinaynaa waxa kale u mahad celinaynaa oo loo mahad celiyo mudan dadkii garoonkan ku tabcay ee ka shaqeeyay haday gudaha joogaan iyo haday dibadda joogaanba laakiin waa markii koowaad insha Allah taala la hubo inuu joogto noqon doono oo diyaaradda suuqyada qaadi karta si joogto u shaqeyn karta sumcad fiican waxay ka leedahay shaqadan qabanaysa insha Allah taala isbuuc walba insha Allah taala hal maalin imaan doonta waxay ka leedahay haddii dadku bato oo lala qabsadana waxay tagi doontaa maray dheeri flight samayso ama isbuuc yaraan 2 jeer 3 jeer insha Allah ay samayso runtii abaalkeeda iyo libteeda iyo waxay ka leedahay mahad celinteeda waxaanu haynaa dhammaan madaxda shirkadda National Airways waxaanu maanta ku soo dhaweynaynaa ama falaydkii Buuhoodle Muqdisho aanu maanta maaragtay noo bilaabmay Buuhoodle Muqdisho alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaanu ku soo dejinay si nabadgelyo rakaabka ka yimid Muqdisho kii Buuhoodle ka tagayna waxaan ku saaray si nabadgelyo Maxamed Ali Bilo telefishinka qaranka Soomaaliya Buuhoodle